Fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Suldaan Seraar oo diiday in uu la kulmo Sharma Boy xilli fanaanka caanka ah ee da'da yar ee lagu magacaabo Sharma Boy uu ku sugan yahay gudaha cariga dalkaasi Mareykanka oo uu ka dhacay bandhigiisii faneed ee ugu horeeyay oo uu ku qabto waddan caalami ah. Maxaa keenay in fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayare ay si gaar ah ula safato Sharma Boy isla mar ahaantaana ay ka soo horjeesato fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Suldaan Seraar? Dagaalkii abid ugu xoogganaa ee ka dhex taagan Suldaan Seraar iyo sidoo kale fanaanka caanka ah ee da'da yar ee lagu magacaabo Sharma Boy. Warbixinteenan ayaan weydiimaha iyo kuwa kale oo intaasi ka badan ku qaada dhigi doonaa saaxiibayaal. Muuqaalkeenan la gareeyo oo la wadaaga saaxiibadiina, soo subscribe garee channelkeenan Duceysana Media oo gambaleelka u furo. Ku mahadsanid daawade. Kulanti habboon saaxiibayaal, meel kasta oo aad dunida daafaheeda ka joogtaan, ku soo dhawaada channelkeenan Duceysana Media oo aan ku qaada dhigi doona maanta warbixin xasaasiya isla mar ahaantaana ku aadan dagaal aad u xoogan oo ka dhex caloosan fanaaniinta caanka ah ee lagu kala magacaabo Suldaan Seraar Guhaad iyo sidoo kale fanaanka da'da yar ee muddooyinkan dambe sida aadka ah fanka uga soo shaac baxay ee lagu magacaabo Sharma Boy, isla mar ahaantaana bandhig faneedkiisii ugu horeeyay ku qabtay gudaha cariga dalkaasi Mareykanka. Haddaba daawade, maxay tahay dagaalkan, siduusa ku bilowday? Aanu ku bilowno. Fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Suldaan Seraar Guhaad ayaa waxa uu uga horeeyay cariga dalkaasi Mareykanka fanaanka da'da yar oo ay soo qaaday shirkadda GMCC ee lagu magacaabo Sharma Boy, isagoona halkaasi ku dhagsaday showgii ugu weynaa, isagoona qabsaday hoolka ugu weyn gudaha dalka Mareykanka, qaasatan Minneapolis hoolka ugu weyn. Waxaana uu sidoo kale dhagsaday show iyadoo keenitaankiisa gudaha dalkaasi Mareykanka mas'uul uu ka ahaa qof shakhsi ah. Haddaba dagaalka Sharma Boy iyo sidoo kale Suldaan Seraar ayaa ka bilowday xagga showga kadib kulan ay wada kulmeen fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Nimcaan Cabdiraxmaan Hillaac iyo sidoo kale Sharma Boy. Ayaa muuqaalkan daawade waxaad kaga ogaan kartaa dagaalka ka dhex caloosmay Suldaan Seraar iyo sidoo kale Sharma Boy. Dagaalka ayaana ah in Nimcaan Cabdiraxmaan Hillaac iyo sidoo kale Sharma Boy uu ku leeyahay waxaan la kulmi doonaa muuqaalka gudihiisa fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Suldaan Seraar, walow uu la kulmay dhammaan fanaaniinta ku sugan gudaha dalkaasi Mareykanka, qaasatan kuwa waaweyn ee Soomaalida ah. balse Suldaan Seraar ayaa waxa uu bahdilaad cad ku sameeyay Sharma Boy kadib markii Sharma Boy showga uu ka hor dhagsaday fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Suldaan Seraar. Dagaalka labadan fanaan ayaana ku bilowday sidaa daawade. Geesta kale, qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha cariga dalkaasi Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ay la kala safteen fanaaniinta kala ah Sharma Boy iyo sidoo kale Suldaan Seraar. Waxaa soo shaac baxday in fanaanada caanka ah ee lagu magacaabo Farxiyo Kabayare ay si aad ah ula safatay, garab weynna ay siisay fanaanka da'da yar ee lagu magacaabo Sharma Boy. Sharma Boy ayaa waxa uu sidoo kale haatan wali ku sugan yahay gudaha dalkaasi Mareykanka isagoo oo bahdilaad cad kala kulmaya fanaanka lagu magacaabo Suldaan Seraar oo fanka uga soo horeeyay. Suldaan Seraar oo uu showgiisa ka dhagsan yahay gudaha dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa la filayaa inuu qabsado showgiisa, walow sidoo kale haatan uu sheegayo walow laga hor dhagsaday isla mar ahaantaana uu ka hor dhagsaday fanaanka caanka ah ee da'da yar ee lagu magacaabo Sharma Boy. Sharma Boy ayaa showgiisa waxa uu noqonayaa showgii ugu horeeyay oo ay ka soo qayb galeen fanaaniin aad u fara badan oo showgiisa ay ka soo qayb galeen dadyow aad u fara badan oo Soomaaliya kuna nool gudaha dalkaasi Mareykanka. Showga Sharma Boy ayaa noqday mid taariikhda galay isla mar ahaantaana waxa uu kaga hormaray ama uu kaga dadbatay dhammaan fanaaniintii shooyada ku qabsanayay gudaha dalkaasi Mareykanka. Waxaa ka soo qayb galay dadyoogii ku sugnaa gudaha magaaladaasi Minnesota iyo sidoo kale gobolada kaag dhowdhow. Dhammaan Soomaalida ayaana si aad u xiiseynayay, walow dhalinyarada qaarkood halkaasi ay isaga duubayeen muuqaalo kala duwan oo ay ku shaaciyeen barahooda bulshada. Muuqaalka la gareeyo oo la wadaag saaxiibadaada. Ku mahadsanid daawashada muuqaalkan. Soo subscribe garee channelkeenan Duceysana Media lana wadaag saaxiibadaada daawade.